halkaan naga daawanaysid waa Mawele Channel. Videoga like saara, sidoo kalena channelka subscribe saara. macquul ma tahay videoga xiga in aan ku subscribe gaarno. Assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabtayda. maanta waxaan idin hayaa qiso aad u xiiso badan. magacaygu waa Maria, waxaan ahay gabar aad u yar, balse adiga markii aad aragtaan ma aaminaysin in aan jiro 20 sano. dhammaantiin markii aad aragtaan tinteyda oo cad aadna u moodaan in ay tahay ciro, waxaad isleedihiin gabadhan waxa ay jirtaa 70 sano ama 60 sano, balse arrinta sidaa moodeen maahan. waxaan jiraa 20 sano oo keliya. dhammaan asxaabtayda waxa ay igu wacaan magacyo kala duwan. magacyadaasina waxaa ka mid ah gabadhii duqda ahayd, yacni in badan ayaan wada nooleen, sidaa awgeed ayaga waa ay aaminsan yihiin in aan 20 sano jiro oo aanan jirin 70 sano. haddaba waxaan doonayaa in aan idinla wadaago qisada ka dambeysay in ay timahayga caddaan isku wada bedelaan oo aanan noqdo gabar waayeel ah. inakeena oo daawasho wacan. qisadayda waxa ay ka bilaabatay mar aan jiray 13 sano, waxaana markaasi ay ahaayeen timahayga kuwa buni ah, sidoo kalena indhahaygu waxa ay ahaayeen kuwa cagaaran. markiiba waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, anigoo jooga iskuulka dhexdiisa, in aan dareemo wareer. kadib markii aan wareerkii dareemay ayaan hal mar waxaan ku dhacay dhulka, welibana anigoo miir daboolmay. markii ay arrintaasi dhacday, dhammaan wixii iskuulka joogeen aad ayay u cabsadeen oo waxaa markiiba lagula cararay dhanka iyo isbitaalka. kadib waxaa la wargeliyey waalidiintayda, waxaana loo sheegay arrintayda. sida ugu dhaqsiyaha badan ayay waxay ku imaadeen isbitaalka. dhakhtaradan waxa ay u sheegtay waalidiintayda in ay qandho daran i qabatay, sidaana aan ku miir daboolmay. intaasi kadib waxaa dhacday in muddo ah in aan miir daboolnaado oo aanan ogaanin waxa agaarahayga ka dhacaya. kadib waxaa dhacday markii dambe in ay dhakhtarada u sheegto waalidiintayda in caafimaadkayga uu dib u soo laaban rabo. sidaa awgeed waxa ay u sheegtay maalmo yar kadib in isbitaalka ay iga bixin doonaan, balse maalmahaasi ayaga ay gurigooda aadayaan, aniga keligaygana aan isbitaalka sii joogayo. sharciga isbitaalka ayay ka mid tahay in ay waalidiinta xaafadahooda aadaan. markii dambe waa aan caafimaaday, laakiin waxaan dareemay caajis aad u fara badan. isbitaalka qolkii aan kaga jiray ayaan ka soo baxay, waxaana rabay xoogaa yar oo nafis ah in aan soo qaato, balse waxaa ila hadashay markiiba gabadha soo dhaweynta fadhisay. waxa ayna dhahday weli waa aad jaran tahay, meelna ha aadin. markiiba waxaan dhahay haddii ay sidaa tahay waxaan fadhiisanayaa kursigaasi si markaasi aan nafis u dareemo. waxa ay iga aqbashay codsigayga, waxa ayna ii ogolaatay in aan fadhiisto kursiga meesha yaalay. intii aan kursiga fadhiyey waxaan isku mashquulinayay gabdhaha shaqaalaha isbitaalka ka ah sida ay shaqadooda u qabsanayaan. balse wax yar kadib waxaa dhacday wax aad ula yaab badan. waxaa agteeda soo fadhiisatay duq waayeel ah, waxa ayna igu qabatay gacanteeda oo aad u qaboweed, waxaana wejigeeda ka muuqday in ay tahay qof jiran. kadib waxa ay dhahday gabadhayda Maria, maxaad keligaaga halkani u fadhisaa? markiiba aad ayaan u naxay, waxaana isweydiiyey halkee ayaa isku barateen. markiiba waxaan dhahay maamo, miyaad garanaysaa? waxa ay bilowday in ay qosasho, waxa ayna igu jawaabtay haa gabadhayda, waan ku garanayaa, welibana halkani waxaan kugu sugayey muddo aad u dheer. haddana waxaa imaaday meeshii aan kugu sugayey, waxaana la joogaa xilligayga. intaas markii ay dhahday aad ayaan u naxay, waxaana dareemay cabsi aad u fara badan. markiiba waxaan bilaabay in aan weydiiyo su'aal ah, maamo, waad i garanaysaa? weliba xitaa waxaaba sii dheer in aad isugaysay. waa arrin cajiib ah. haddaba waxaan kuu sheegayaa in aan daal fara badan dareemayo, waxaana rabaa in aan aado qolkayga. markiiba waxa ay ugu jawaabtay hagaag gabadhayda, waa arrin fiican, balse waxaan kuu sheegayaa mar kale in aan kulmi doono, welibana sida ugu dhaqsiyaha badan in aan labadeennaba ku kulmi doono. markii ay intaasi dhahday waxaan isku dayay in aan baxo, balse ayada ayaaba hal mar iga tagtay oo waa ay dhuumatay. aad ayaan u sii cabsaday.
kadib waxaan go'aansaday in aan u tago gabadha meesha fadhisa si aan u weydiiyo duqdani wax ku saabsan. markii aan gabadh u tagay ayaa waxaan dhahay, marwo, waxaan ku weydiinayaa duqda kursiga ila fadhisay yay ahayd. markii waxa ay ugu jawaabtay, yaad ka hadlaysaa? maanta oo idil adiga keliya ayaa kursiga fadhiyey, wax kale oo kula fadhiyey ma aanan arkin. waxaa laga yaabaa in xanuunka waxyaabahani ay kuu keenayaan. haddaba waxaan ku leeyahay sariirtaada tag oo naso, waxani waa ay kaa baaba'ayaan. intaasi kadib waa aan ka soo tagay gabadhii, waxaana soo aaday sariirtayda, balse waxaan bilaabay in aan fikiro. markii dambena niyadeyda waxaan u sheegay in ay waxani aan niyadeyda keliya aan ka suuraystay oo wax been ah ay yihiin, laakiin arrintaasi waa aan ku qaldanaa oo waxa aan arkay waxay ahaayeen wax sax ah. subaxii markii la gaaray waxaa booqasho igu imaaday waalidiintayda, balse markay i arkeen waxa ay la kulmeen wax lama filaan ah. waxa ayna waxaasi ahaayeen tintaydii oo idil in ay isku beddeshay tin caddaan ah, welibana waxaan ahaa mid si daran u oonaysa. markiiba hooyadeyda ayaa si daran u xanaaqday, waxa ayna dhahday, digtoorayso, maxaa ku dhacay gabadhayda? ayadoo caafimaad qabta ayaan ogeyn shalay, maanta maxaa ku dhacay? waxa ay ku jawaabtay digtooraysada, gabadhaada waxaa ku dhacay cudur aanan la aqoonin. annagana waxaan isku daynay in cudurkani aan baaritaan ku sameyno, welibna wax jawaab ah kama aanan helin. intaasi kadibna waxa ay sii raacisay, waxaan sugaynaa jawaabta ka soo bixi doonto cudurka ku dhacay gabadhaada. markiiba waxaan dhahay, hooyo, ma waxaa jira cudur halis ah oo aad iga qariseen aniga aan qabo? waa ku baryaa hooyo, haddii ay jiraan wax aad iga qarinaysid ii sheeg. markiiba waxa ay igu jawaabtay hooyadeyda, maya gabadhayda, wax lagaa qarinayo ma jiraan, waadna caafimaad doontaa inshaa allah. wax yar kadib waxaa dhacday in ay soo baxdo jawaabta cudurka baaritaanka lagu sameeyey. waxa ayna digtooreysada sheegtay inaanan qabin wax cudur ah, isbeddelkan waxa uu ka jiraa tintayda oo keliya, mana jiro cudur kale oo aan qabo. intaas markii aan maqlay, digtooreysada waxaan ka codsaday in aan gurigeyga aado maadaama aan fahmi waayey wax waliba sida ay u socdaan, balse digtooreysada waxa ay ugu jawaabtay, maya, ma bixi doontid, waxaana joogaysaa dhowr maalmood, waxaana baaritaan fiican ku sameynaynaa cudurkani kugu dhacay. intaasi kadib waalidiintaydana waa ay ku raaceen, laakiin aniga markiiba waxaa niyadeyda ku soo dhacday duqdii waayeesha ahayd ee aan la kulmay shalay. maxaa yeelay waxaan uga shakiyey cudurkani in ay duqdaasi ugu reebtay. markiiba waxaan go'aansaday in aan raadiyo duqdaasi, ayada ayaana sabab u ah cudurkani in uu igu dhaco. kadib waan soo baxay, waxaana bilaabay in aan ka raadiyo qol weliba ay ku jiraan bukaan, balse markii aan bilaabay in aan raadiyo ayaa waxaan arkay wax aan aad ugu naxay. waxa ayna waxaasi ahaayeen nin oo meesha taagan, waxa uuna ninkaasi ahaa nin timihiisa wadacad, hal ilna la. aad ayaan u cabsaday, waxaana dareemay in uu hore u soconayo, balse sidii uu u socday waxa uu hal mar dhex maray derbigii meesha ku yaalay. aad ayaan u naxay, markiiba waxaan u dhaqaaqay dhanka iyo derbigii uu ka dhex baxay si markaasi aan u hubiyo. waxaan bilaabay in aan taabto derbigii uu ka dhex baxay in uu yahay derbi sax ah iyo in kale. markiiba waxaa gadaasheeda soo istaagtay duqdii waayeesha ahayd, waxa aynay dhahday, waxaa hubaal ah in uu ka dhex baxay derbigani, waxaana waajib kugu ah in arrintaasi aad fahamtid oo aad aamintid. aad ayaan u naxay, markiiba waxaan bilaabay in aan fiiriyo, waxaana arkay in ayadii ay tahay, waxaana dhahay, maanta oo idil ayaan ku raadinayay, halkee ka baxday? waxa ay igu jawaabtay, markani waa kulankeenii ugu dambeeyey aniga iyo adiga, waxaan filayaa diyaar in aad tahay. markiiba waxaan ugu jawaabay, haddaba anigu ma doonayo in aad maanta dhan i wareerisid, waxaana rabaa in aad igaaga jawaabtid su'aalahayga. su-aasha koowaad waxa ay tahay sababta ay tinteedu iskugu beddeshay wada caddaan. su-aasha labaadna waxa ay tahay maxaa aniga oo keliya kuu arkayaa. su-aasha saddexaad waxa ay tahay ninkani sidee ayuu derbiga u dhex maray. waxa ay igu jawaabtay, gabadhayda, arrinta hadda kugu dhacayso aniga ayay igu dhacday muddo aad u dheer ka hor, waxaana hadda rabaa awoodahayga in aan adiga kugu wareejiyo. muddadanina waxaan raadinayay qof aan ku kalsoonahay oo aan ku wareejin karo inta aanan dhimanin ka hor awoodahayga. kadib waxaan dhahay, waa maxay awoodahaaga? waxa ay igu jawaabtay,
waxaad awood u yeelan doontaa in aad ogaatid waxa la yiraahdo ruuxaan. intaasi kadib aad ayaan u naxay. markii waxa ay ii sii raacisay, haddaba ma awoodi intaas wax ka badan in aan kuu sii sheego, adiga ayaana lagaa rabaa in aad baaritaan badan ku sii samaysid awoodahani. kadib waxaa la yaabay arrinteeda, waxaana dhahay, maamo waa ku baryaa sidani ha igaaga tegin, waxaan rabaa in aan ku weydiiyo su'aalo aad u fara badan. sidoo kale xaaladeyda waxaan rabaa in ay dib ugu laabato sidii hore ee aan ahaa. kadib intaasi markii ay maqashay ayadoona ila hadlin ayay hal mar iga tagtay, wax jawaab ahna ima siinin. waxaan dareemay murugo aad u fara badan iyo caburnaan. kadib waxaan bilaabay in aan ooyo, balse markiiba waxaan ogaaday in ay tahay xilli dambe, waxaana go'aansaday in aan qolkeyga aado. laakiin hal mar ayaa horteyda waxaaba ka soo baxday gabar aad u yar, sidoo kalena ka muuqato daruufo aad u fara badan. intaasi kadib ayadoonan ila hadlin ayay hal mar iga tagtay oo waa ayna carartay. markiiba waxaan ogaaday gabadhani in ay ku jiraan waxa aan u baahanahay oo idil dusheeda. kadib waxaan bilaabay gabadhii yareed in aan dabagalo. markiiba ayadana waxa ay bilowday in ay orod ku korto jaraanjarta aadaysa isbitaalka qaybta ugu sareyso, yacni saqafka dhismaha. kadib waxaan bilaabay in aan sii dabagalo ilaa meesha ay u socotaba aan ka soo ogaado. markiiba sida ay ii waday waxa ay i geysay isbitaalka saqafkiisa. balse waxaa su'aal ah, maxay ka doontay gabadhaasi isbitaalka dushiisa? sidoo kalena kuma ayay tahay gabadhaasi yar? haddaba waxaad u ogaanaysaan qaybta xigta insha allah. maca asalaama.